waxa uuna ku saabsan yahay isbedelada xawliga leh ee ka socda bariga dhexe iyo saameynta ay ku leeyihiin geeska Afrika. sidoo kale waxaynu dul istaagi doonaa Iiraan, Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Soomaaliya si gaar ah. si kastaba Sheekh Cabdiraxmaan, isbedelka cusub ee bariga dhexe iminka ka socda maxaa keenay? wuxuu ogan yahay xawli buu leeyahay, maxaa keenay? saddex sababood. sababta koowaad, adduunka dhan baa waxaa ka socda isbedel. adduunka dhan isbedel baa ka socda, soo bilaabmay 10 sano ugu dambeysay, laakiin si caadi u socday oon islahayn waxay qaadan doontaa ilaa 30 sano. waxaa aad u ordisiiyey Trump, madaxweynaha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka markii hore u yimiday barnaamijkiisa wuxuu u hirgeli waayey madax dowladda camiiqa profound kunta dheerto ka soo qaatay iyo dowladda ku daray ay soo taageen. iminka wuxuu keentay dad aan waxa shaqo ku leeyahay isagu wato. marka barnaamijkiisa wuxuu u wataa si degdega orada oo isleedahay wuxuu xaqiijinayaa arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay Mareykanka first, Israel first, arrinta labaad iyo sababta labaad oo ah tita koobaad ee isbedel gaaraysa waa Trump iyo orodkiisa. arrinta labaad waxa weeyaan Mareykanku wuxuu sameeyay istaraatiijiyad ABC. eedu waxa weeyaan waa qaaradda Ameerika oo dhan. qaaradda Ameerika soo taqaanid Ameerika oo kala baxda waqooyi iyo koonfur. waqooyi waxa degan waa Mareykan iyo Canada. Mareykan wuxuu badan yihiin inta badan koonfurta u badan yihiin. qaaradda dhan in Mareykan loogu yimaado. haddii loogu yimaadana gacan adag buu qaadayaa. waa Venezuela waxay ka dhacday arkay. maxaa beeya labada bad ee harriya ka xigta Pacifiga iyo Atlantiga iyo waxa jasiirada dhex yaala. Mareykanku wuxuu qabaa inaan loogu yimaad. ninkii ugu yimaadana falka gumaraya. siin waa maxay? waa dunida inteeda kaleeto ay ku jirto bariga dhexe ku jiraan. iyada markaa muxuu yidhi bariga dhexe? wuxuu yidhi arrinta bariga dhexe waan iska gaabinaynaa. waxaa la dejiyey istaraatiijiyadii 4 sano soo socota oo la dejin lahaa 2026 waxaa la dejiyey sanadka 2026. muxuu ka baqay 2026 wuxuu ka baqay waxaa dhacaysa doorashadii nisfiga nuska ee Congress-ka. haddii dhacdana waa laga badinayaa. shalay waxaan arkaynay 70% in laga badin doono. marka ma soconaysa fikradiisu. marka iminku dejiyey waxaa ka mid ah in bariga dhexe la iska soo ururiyo. si bariga dhexe la iska soo ururiyana laba shay waa in la qabto. shayga koowaad maxay? in Israa'iil sidii loo badbaadin lahaa iyaduna isku badbaadin lahayd haddeeto walaal loo dejiyo. gartay. arrinta labaad halistaana wax weeyaan in Iiraan la burburiyo. marka Iiraan waxaa la burburinaya waa nidaamkii oo shir la galay waxaa laga soo saaray boqorkii waa la diyaariyey waa inankii shaaha u dhalay. marka waa inay sarkeen dowladda Mareykanka barnaamijkiina waa la dejiyey si boqor nool lahaa dastuuri as Ingiriis oo kale iyo wixii oo dhan baa la dejiyey. marka bariga dhexe marka ayna arrimahan bariga dhexe ay xoog u ordaan waxaa keentay taaba keentay. marka dowladihii bariga dhexe deganaa ee xulafada la ahaa Mareykanka si waaqici u fikireen. iyagii markay si waaqici u fikireen waxay yiraahdeen walaalkaana wiilka lahaw wiilkaagana walaalka lahaw. Mareykan xalifa la hayd maaha isku halin. Shiini ruushoo kaceen iyagii isku soo kaceen oo Pakistan oo boqolkiiba 85 hubkiga samaysata iyo Sacuudi baa heshiiyey. Sacuudi waxaa laga bilaabay warshadii hubka. waxaa laga bilaabay Turkiga diyaaradihii inay sameeyaan Sacuudi lagu dhex sameeyay. lacagtii Sacuudiga bixinaya aqligiina waa Turkiga iyo Pakistan. marka shaqo kala bilaabatay oo ah inaan la isku halin oo isxulafaysiin wixii ka dhacay Qatar ayaa keentay dirsi weyn oo ahayd saldhigga ugu weyn Mareykanku leeyahay bariga dhexe. Qatar buu ku leeyahay haddana isaga soo weerartay. marka inayna ku jirin nabadgelyo iyo dareen. marka waxaa keentay inay
gartay dhaqdhaqaaq badan uu ka dhaco bariga dhexe. gartay markaas waxaa muuqato isxulufaysi inuu bilaawmay kala miirmay weliba marka waxaa la isweydiin karaa isxulufaysigaas imise ayuu u kala miirmay oo u kala baxay maxaase ka soo baxay okay isxulufaysiga bariga dhexe ka bilaabmay waa 3 qolo weeyaan qolo waa xulufo cad oo ah hogaaminayo maxamed bin salmaan inkastoo hogaamin lahaa Erdogan laakiin isagu u dhiibtay inuu hogaamiyo marka maxamed bin salmaan hogaaminaya waxaa ku jira Turkiga waxaa ku jira Qatar waxaa ku jira Masar oo iyadoo dhexdhexa maaragtay meel weli aan jirin laakiin u badan in xagga soo marto waxaa kaleeto oo lagu soo wadaa hadduu dagaalkani dhaco oo Iiraan si uga baxdo in Iiraan soo gasho marka xulufadu waa taasi waa qolada kale oo xulufada waxa weeyaan waa xulufo cad iyo kuwa aan caddayn kuwa cad waxa weeyaan waa Israa'iil iyo Imaaraadka waa xulufo weeyaan yaa ku jira Urdun yaa ka mid ah suldada Falastiin baa ka mid ah عباس وحكم ودولة waxbaan haysan Abu Maazin baa ka mid ah marka kuwaasina wax weeyaan waa qolada labaad weeyaan qolada maaragtay saddexaad oo iyagu aan isleenahay waa xulufo laakiin aan dhahayno waxaa horkacaysa Masar waa Masar waa Suudaan waa Djibouti waa Soomaaliya kuwaasina waa xulufo marka Masar baa doonaysa aabanimo waxay diidanaysaa Sacuudigu inuu aaban noqon bay doonaysaa marka kuwan yar bayna urursanaysa marka inkastoo ma dhooto badda bandhig lagu sameeyay badda oo lagu tababaranayay Sacuudiga hogaaminayay Masar baa ka mid ma ayna rabin Masar saa noqoto marka Masaarida iyo Suudaan iyo iska burbursan Soomaaliya oo xaalad ka tahay Djibouti dowladda Iiraan gartay marka saas bay u abuurmaysaa dowlado isxulufaysanaya waxaa la isku yaqaanay Sacuudiga iyo Imaaraadka inay isku xulufo ahaayadaan way kala boodeen kala boodkaas ay kala boodeen maxaa sababay baa la isdhihi karaa horta taariikhiyan Sacuudiga iyo Imaaraadku heshiis ma jirin taariikhiyan 3 sabab daraadood sababta koowaad waxa weeyaan Imaaraadku wuxuu doonayay inuu quwad weyn noqdo oo dowladaha Cumaan marka laga reebo khaliijka dhan inay noqdaan Imaaraad ay ku xukumaan oo fikradda Sheekh Zayed Saabixid kuweyneena soo gasho Qatarna ay soo gasho iyo Imaaraadki intaas oo awood qoto Sacuudiga waa dowlad weyn marka awood weyn garab fadhiisi iyo ka fikir jiray Imaaraadku marka dowladda Sacuudiga madaxdoodu waxay u arkeen Imaaraadka منافس سياسي dhinaca kale ee xagga aqoonta iyo ideolojiyada khilaaf weyn baa dhaxeeya dowladda Imaaraad waa dowlad Soofiya weeyaan Sacuudiga waa dowlad Salafiya Wahaabiya aqoonta kala duwan afkaartooda aad buu kala duwan yahay markii dowladda Sacuudiga waa dowlad aqoonta ku socota ee Wahaabiyada ku socota si fiican ku socota masalafiyada way iska ilaalin jireen Imaaraadka yani Imaaraadku Soofiya arkeen taasina waxa isku fiicnaan jirin aris saddexaad baan isku fiicnaan jirin had iyo jeer Imaaraadku wuxuu soo bandhigi jiray mashruuc ka soo horjeeda Sacuudiga waxa kamid ahayd mashruucii Dubai mashruucii Abu Dhabi mashaariic waxay keeni jireen Sacuudiga ay ku gilgilayaan dhaqaalihiisa okay arrintaasi go'aan burburtay oo taxaaluf noqday taxaalufkaas wuxuu bilaabmay markii uu Maxamed bin Salmaan ka fikiray inuu noqdo boqor waxaana hor yaalay jidka uu boqor ku noqonayo caqabad adag waa weyn waliba waxa la marwanka dowladda Mareykanka oo ogoleen waxa la bartuu ka ahaa jirooyin uu qabo oo la og yahay oo dowladda qarbiga ay og yihiin waxa la mar saddex ka ahaa ragga silsiladda isdaba yaalla ee Sacuudiga marka laga soo bilaabo ciyaalkii boqor Fahad ciyaalkii Cabdallah waxa soo dhamma meesha isdaba yaallay oo ciyaalkii Naif oo wada waaweyn oo dhaxalka sugayay waxaana laga dhigay dhaxal sugaha Naif inkiisi Maxamed bin Naif oo nin culus ah culuskiisana waxa uu keenay 3 arrimood waxa uu keenay number 1 Mareykanka aad ula saaxiib ah
lamber 2 wasaaradda arrimaha guduhu ka soo shaqaysay iyo abiiba wadanka aad bay u yaqaanaan lamber 3 wadaadada culus ee adag ee wadankana saaxiib buu lahaa mashaariicda loo yaqaanay mashaariicda alwaxyiin la xafido iyaga dambe waa okay marka dariiqaaba adag baa horyaali maxamed bin salmaan markuu dhintay cabdalla uu aabihii boqor noqday waxaa la sameeyey waxaa laga dhigay dhaxal sugaha waliyu alcahdi baa laga dhigay nin baa horjooga laakiin culus dhinaca ciidankana waxaa haysta dhinac cabdalla maxaa la yeelaa haddii faraha la sula galo waqtiga dagaal baa dhacaya haddii usradu isdirirtana sacuudigu waa lagu kala tagaya awoodna waqtigaa ma hayo salmaanna ma hayo maxamed ma hayo awoodna hagee laga soo qaadanayaa maraykan laga soo qaadanayaa maxamed bin zayd baa u yaadhay maxamed salmaan wuxuu anaa kaa iibanaya maraykanka laakiin aniga isu kay dhiib xiriirkooda meeshu ka bilowdaad waday marka waa ka boqor baan kaa dhigi adaan dowladda kuu dhiibi anaa maraykan gacanta ku haya adiguna anigu daba safo usi dhiibi allaba mashruuca aan wada qaadayna waxa weeyaan calmanada caalamka islaamka sacuudi maraykan soo islaamka waan cilmaaniinayna labadeedana mas-uulka ah uu kala qaatay 3 barnaamijyada adduunka dhacee fusuqa ee heesaha ay waaweyn baan jiddo iyo mako iyo keenayna iyo riyaad keenayna iyo dubi awba ka sii jirtay uu ogolaaday maxamed bin salmaan koshner baa loo keenay koshner iyo maxamed bin salmaan baa saaxiib noqday mashaariic baa la isla galay iyo projectayo waqtigii ay soo dhawaatay inuu qabto iyo maxamed bin naayif iyo mukhaabaraadka maraykanka waxay diyaariyeen in maxamed bin naayif laga dhigo boqor oo la afgembiye salmaan oo bukaale dhahdo koshneer baa warkii ka soo qaaday mukhaabaraadka maraykanka wuxuu keenay maxamed bin zayd maxamed bin zaydna wuxuu geeyey maxamed salmaan ramadaankii bish 10kii dambe ugu dambeysay iyadoo la ictikaafayo ayaa naayif la eriyey salmaan waa loo sheegay salmaan uu eriyey wuxuu noqday yarkii yaraa waliyul cahd ayaa ka dhigay maxamed bin zayd marka maxamed bin zayd wuxuu kasbaday qalbiga iyo caqliga maxamed bin salmaan maxamed bin salmaan goor baa la kala booday haddaba saaxiib baa lahaa qaraarad baa la qaatay shaqooyin baa la qabtay qatar baa la wada weeraray way soo socotay adduunka wax laga qabtay suudaan baraayo maxaa keenay kala boodkan dantiyaa dhamaatay 3 shay baa keentay ama 4 shay dadka qaar waxay leeyihiin waxaa keentay sacuudiga baraarugsan ankaaldin martilo hawsha imaaraadka okay sacuudigu uu baraarugay waa sax laakiin baraaruga maxaa keenay waxaa keenay dowladda sacuudiga waxay heshay sida ay qortay jirid alwatan la dhahdo oo sacuudiga ka soo baxda waxaa la ogaaday oo mukhaabaraad dhow ay ogaadeen in uu maxamed bin zayd qaraar qaatay in maxamed bin la dilo ikhtiyaal arrintaasi qarax bay keentay 2 مشروع اليوم واي لكن maxaa ku kalifay maxamed bin zaydkii maxamed bin salmaan aadka saaxiib ku lahaa inuu qaato qaraar adag oo inuu maxamed bin salmaan intuu weynaaday inuu soo ceshaday awoodiisa oo ka wadayada awoodiisa inuu soo ceshaday sacuudi waa dowladda aabbaha ka khaliijka sax aabanimadu iska soo ceshaday ilaa wuxuu gaaray khalaas uu kala safeeyay wixii oo dhan arinta labaad yemen waa lagu siray mashruuca arinta labaad muhiimka wax weeyaan waa muhiim taasina arinta labaad muhiimka wax weeyaan اليوم مشروع اليوم وحوسية العق ضد حوسيين تكملة الحياة يو رك كملة مخابراتك كونفرت الدولة قاعدة كل جان وحنا كو أمري إن لا جراعه مشروع اليوم هذا صار جراعة سعودي يمن إن شاء الله فشل اليوم مشروعي نكن ومشروع على واسع تانا واركين أنا تصدق هذا كانت حويان مركو بقر dhaxal sugu gaaray darajad oo hadeeta maraykan iyo adduunkii la saaxiibay oo dunidii fahmay oo gudihiina isku dibaritay wuxuu doonay inuu ku celiyo meeshiisii dowladda imaaraadka xadkeygii inuu ku cesho marka uu arkay inaan dowladda imaaraadka xadkeygii lagu celinayna oo imaaraadku wuxuu soo bilaabay ahayd
مشروع كسو ورجي السعودي وكود يمنتها يمن waxa laga waday in xusiinta laga takhaluso laakiin isagu wuxuu watay inuu dawlad ka samaysto koonfurta inuu soo qadar qabsado inuu ma yaba jasiiradahan oo dhan iyo xeebaha dhan gacanta ku dhigo iyo xuduudii Sacuudi istaraatiijiyadiisii uu iska watay oo uu la watayna Israa'iil marka arintaasina waxay keentay ila maartay Sacuudi uu arko inay tahay afgambi الافغانيه دولة السعوديه كدوله استراتيجيه الدوله الافغانيه اريد افراد ugu dambeeyso islaahay waxay keentay inay kala durkaan labadan wax weeyaan ninka la yiraahdo Mohammed bin Zayed wuxuu arkaa dowladda Sacuudiga say qoraan inay tahay dowlad mutakhalifa reer galbeedkan wuxuu ka dhaxdhayaa haddii aanu aan hayn waayo waxay ku noqonaysaa meesheedii aanu ahba Sacuudi marka wuxuu leeyahay أنا هينجري خليج قال لي ما هينجرين مرة خلافات كاس ودن باكي أنا كلا بوتك وصوت إن شاء الله تعالى.